kadib wuxuu yidhi dunida iyo bilaadda adduunka ku yaalla oo dhan ay qolyaha muslimiinta sheegtay ay joogaan waagi hore waxay ahaan jireen bilaad islaam iyo diyaaru islaam bay ahaayeen way isbedeleen oo shaar cusub bay bilaadu qaato ah daaru kufrin waxaana la ogyahay aqlabu diyaar almuslimiin xilligu sheekhu hadlahayay ilaa aminkan bahe maxaa lagu xukumaa dastuur iyo qaanuun baa lagu xukumaa kadib wuxuu yidhi dunida iyo bilaadda adduunka ku yaalla oo dhan ay qolyaha muslimiinta sheegtay ay joogaan waagi hore waxay ahaan jireen bilaad islaam iyo diyaaru islaam bay ahaayeen way isbedeleen oo shaar cusub bay bilaadu qaato ah daaru kufrin diyaartii islaamkii hore way isbedeshay waxay isu bedeshay ilaa diyaari kufrin daaru kufrin ninka ku nool la fawa kaafir saasuu marka u dhigay hawshiisii muqadimaad faasida ah iyo natiijo kaafiraha ka soo baxday waa maxay nin walbo ku nool bilaadaas oon asaga ahayn iyo intiisa waa kaafir waxaa ka mid ah ragga xukumay waddan kasta oo dastuur iyo qaanuun lagaga dhaqmo inuu daaro kufrin yahay muftigii reer sacuudi ee sheekh ibnu baas ka horreeyey sheekh maxamed ibraahim aali sheikh ayaa asaguna wuxuu fatwooday بلد كستا أو لغو رقم قانون يا دستور وضعه ليس بلد إسلام وتجب الهجرة منه على القادر عليها إن لقى هجرة وواجب منك أولي كرب بلد إسلام معها ديارة محكو حكم مركز دياره هي كفر وحنا اللي هي أغلب ديار المسلمين حلقوا شيخ هلها إلى أمن كان بهم حلو حكومة دستور يا قانون بلغو حكومة فتاوي الشيخ محمد إبراهيم بلغو الله بنكر مجلد كسيدي اللي حاد صفحة سيدتني سيدت طبعا لا طابع يكون سقال صدح بقول سقاشين سقال كي جرده إذا وحنا وجه هذا شعب لا حكومة ميل دجن أما حكومة لا سكلا الله تشو أما وداد لا تكفيرية علماء لا تكفيرية سبب شرعي أن لقول تكفيرية من معها خارجي ما لقون نقديه خارجي ذو أصول جون إليهن ومركزي أيقوا يسكوا وافقين بدن كود قيب كمان أي خلافه